madaxweynaha dowlad-deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo wehelayeen mas'uuliyiin heer federaal iyo heer deegaan ayaa maanta booqasho gaar ah ku tageen degmada Boqolmaanyo si ay ula socdaan xaaladaha deegaanka gaar ahaan wacyigelinta haweenka taageerada dhalinyarada hase ahaatee booqashadan oo ahayd mid taariikhi ah waxaana maanta halkaasi madaxweyne Mustafa uu la kulmay aabba Wawar Cabdi socdaalkan xasaasiga waxa ka qayb qaatay xubno ka tirsan maamulka deegaanka iyo komishanka maareynta khatarada musiibooyinka taasi oo muujinaysa muhiimadda madaxweynaha siinayo arrimaha bini'aadanimo taageerada qoysaska deegaanka iyo xoojinta xiriirka dawladda iyo bulshada waxaana halkaasi maanta madaxweynaha ku soo dhaweeyay taageero aad u ballaaran oo ay ka mid ahaayeen dhalinyaro culimo u diin iyo waxgarad kuwaasi maanta ka qayb ahaayeen soo dhaweynta loo sameeyay madaxweyne Mustafa madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta ayaa si gaar ah maanta ula kulmeen aabba Wawar Cabdi iyo kooda hadlayeen xaaladaha nolosha ee qoysaska deegaankan sida baahida adeegyada muhiimka iyo sidii loo xoojin lahaa taageerada dawladda iyo bulshada deegaanka sidoo kale madaxweynaha ayaa si cad u muujiyay muhiimadda taageerada haweenka iyo dhalinyarada isagoo ku booriyay in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo ka qaybgalka bulshada iyo horumarinta adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo fursadaha shaqo oo dhalinyarada loo sameeyo booqashadan ayaa ka mid ah dadaalada madaxweynaha iyo maamulka deegaanka lagu xaqiijinayo caawinta masaakiinta iyo kor u qaadista fursadaha haweenka dhalinyarada ee deegaankan